halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed kusoo dhawaada meel kasta oo adduunka aad ku nooshihiin waa xoogagii talooyinka shacabka Soomaaliyeed iyo waxaad ka fiirsan kartaan generalka YouTube-ka ee ciwaankiisu uu yahay talooyinka shacabka Soomaaliyeed maanta qodobo badan ayaan idin hayaa qodobka ugu horeeyo libinti Afrika oo aad gacanta loogu galayo Khaliijul Carab iyo libintaas oo Afrika ay si dhaba ay u gaartay balse isirnacaabka uu qabo Abiy Ahmed ayaa keentay inuu madaxweyne Farmaajo aan libintii Afrika oo wadaagto Afrika dhan ay xataa Itoobiya ay dhinaceeda ay ka leedahay taas oo xaqirayo oo Khaliijul Carab oo gacanta u gelina isagoo markaas dhaqaale yar ka doorbidayo warbixinahaas aan idin haynaa madaxweynaha Djibouti oo taas si qoto dheer aan aga fikirin laakiin ay tahay mararka qaarkood in la fiiriyo diblomaasiga iyo dalkiisa raaciyaha uu yahay taas oo doorbidayo inay shacabkiisa ay ku noolaadaan nabad taasna ay horseedin dhibaato iyo burbur shacabkiisa maadaama uu yahay mas'uul sare kiniisna soo daadiyay dalka Djibouti warbixinta kale oo shibaaxayso madaxweyne Farmaajo libinada gaartay ayaa dib kugu soo noqon doona si door adaga inaad aga fikirtid libinada Afrika si dhaba aad markaas guulaha aga muujisay markaasna Soomaalida dhaxdeeda si toos ugu soo noqo libin iyo kaalin xoog leh iyo xadadada iyo cirka iyo dhulka iyo xuduudada geeyiga Soomaalida inaa si fiican u adkayso sababtoo ah Khaliijul Carab waxa ka soo socda dhibaato aad u tiro badan iyo isirnacaabka ay u qabaan Afrika oo libin amba urur xoog badan yeesho si fiican aad aga baaraan degtaan Abiy Ahmed isirnacaabka uu qaba Afrika dhibaato badan ayay u keeni doontaa oo Itoobiya dib ugu soo noqoto oo markaas dhibaato ay kala kulmaan shacabka Itoobiya isagoo mas'uuliyadii Afrika dhuminayo iyo libinada ay gaaraysa Afrika iyadoo haddaan ay tanasul badan ay isu muujinayso iyo walaaltinimo dhab markaas ka hana qaada Afrika warbixino kale ayaan idin hayaa dal hadduu boqortooyo yahay wiligiinba Afrika ay ka waantooba kana leexda wax xiriira hala sameynina ilaa diblomaasig aadanihiina ku fiirsanaysaa moogi Khaliijul Carab waxay isku dayayaan in ay dalka Qatar ay aad u burburiyaan iyaga oo markaas u kaashanayo waxyaabo ma arkino bini'aadanimada ka dheer iyo dalkaas Saudi Arabia iyo Imaaraat dal hadduu boqortooyo yahay wiligaaba wax heshiisahana la galin dalkaada inay u soo dhaxgalin sababtoo aan idin dhahayo waa saas dalkii ay walaalo ahaayeen ayay intay u heshiyeen ay dadkoodii iyo dalkoodii oo walaalo ah ayay inay si dhab u gumaadaan ay rabeen warbixinadaasna waxaa sheegayo wakaaladda wararka adduunka markaas ay ma arkino shibaaxayaan qeybaha miidiyaha amba qeybaha social media taas oo been laga sheegi karin meel walbaba looga hadlayo dal hadduu boqortooyo yahay waxaan ka digayaa inuuna dal maal gashanin sababta oo ah wuxuu ku dheerahayaa cunsurinimo amba shacabka wadankiisa ku nool iyo shacabada kale inuunan markaasi u danayhaynin oo dana gaara amba kursigaas inuunan ka kicin fiirsaa warbixinta talooyinka shacabka Soomaaliyeed ee shibaaxayso qadiyada Afrika u doodo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.